bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan hadduu eebidmo waxaa ka mid noqonaya dowladda Soomaaliya oo sameynaysa guddi qaran ee xakameynta hubka fudud wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo maanta laga filayo go'aan saameyn ku yeelan doona wadan ka mid ah wadamada dariska ah dowladda Kuuba oo sheegtay madax furasho ay ka dhiibeyso dhaqaatiir lagu afduubtay magaalada Mandheera guddi ka socda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maamulka koonfur galbeed metela oo la filayo inay gaaraan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dowladda Soomaaliya maamulka Al-Sunna ay wada gaareen akhbaraadka dibadda raadraaca wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya weerar ka dhacay wadanka Yemen isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka raadraaca wararka ofisan dowladda Soomaaliya ayaa sameynaysa guddi qaran oo xakameynaya hubka fudud ee lagu dhaxwato caasimadda Soomaaliya Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay ku dhawaaqdo guddi qaran oo ka hortagaya hubka fudud ee lagu dhaxwato guud ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka guddigan ayaa la sheegayaa inuu la dagaalami doono hubka fudud ay wataan maleeshiya beeleedka iyo waliba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo si sharci la'aanta ugu dhaxmara wadooyinka waaweyn ee caasimadda xilli la sheegayo in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayaan dilalka qorsheysan iyo waliba dhac loo geysanayo dadka rayidka ciidamada ku labisan dariska ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in xilliyada habeenkii ay dhac baasan ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka Banaadir dowladda wadanka Kuuba ayaa sheegtay in madax furasho ay ka dhiibeyso dhaqaatiir laga afduubtay gudaha dalka Kenya dowladda Kuuba war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in madax furasho ay siinayso dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab oo ay sheegtay in dhaqaatiir u dhalatay wadanka Kuuba ay magaalada Mandheera laga afduubtay dhaqaatiirtan ayaa la sheegayaa in tar ahaan 4 kor dhaafayso xilli dowladda Kenya ay sheegtay in si qasab ah ay ku soo furanayso balse war ka soo baxay dowladda wadanka Kuuba ayaa sheegtay in hadalka Kenya uu yahay mid waxba kama jiraan xilligan diyaar u tahay in Al-Shabaab ay siiso lacag madax furasho oo malaayiin dollar ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Al-Sunna wal Jameeca madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabe ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi asagoo sheegay in heshiiskaasi uu noqon doono mid miro dhal ah horseedi kara in doorasho xur iyo xalaal ah ay ka dhacdo maamulka Galmudug Carabe ayaa tan iqlaafkii xooganaa u dhaxeeyay asaga iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf wuxuu heshiis buuxa la ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya guddigan ayaa la sheegayaa in maamulka Puntland ay kala hadli doonaan arrimo quseeya dad shacab ah oo ku dhaqan halkaasi kana soo jeeda koonfur galbeed oo maalmihii dambe lagu dhibaateynayay magaaladaasi dadka ka soo jeeda koonfur galbeed oo badan ganacsato ayaa inta badan waxa dhibaato xoogan loogu geystaa maamulka Galmudug iyo Puntland iyadoo dhawaan ay ahayd dad aad u fara badan oo 9 ruux kor u dhaafaya in lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug guddigan isugu jira xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin metelaya koonfur galbeed ayaa la sheegayaa in kulan ay la qaadanayaan madaxda maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Bari kaad warkaasi ka daawanaysaan waa raadraaca wararka iminkana akhbaraadkii dibadda wararka ka imaanaya magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen ayaa la sheegayaa in weerar dhanka cirka uu ka fuliyay isbahaysiga uu hogaaminayo wadanka Sacuudi Carabiya ka la sheegayo inay ku geeriyoodeen dagaalamayaal ka tirsan Xuutiyiinta halkaasi ka dagaalama inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib markii goob ay ku shirayeen Xuutiyiinta lala bartilmaameedsaday gantaal waxaana la sheegayaa in inta badan ay geeriyoodeen dadka halkaasi ku shirayay
afayeen u hadlay xulafada sacuudiga ayaa sheegay in gantaal lagu dhuftay xuutiyiintu shirayay kaa oo la sheegay in bartilmaameedku ahaa halka ay ku shirayeen warkii aad ka daawanaysay raadraaca wararka daawadayaal waa naga intaa